Assalaamu calaykum daawada kusoo dhawow kanaalka Xiskaal waxaan noo socday course-keena QuickBook waxaan soo gaarnay casharkeena 7 waxaan noo furnay company-geena Jamac Company QuickBook 2018 casharkeena ugu dambeeyay lixaad waxaan ku soo baranay sida wax loogu iibiyo waxa loo yaqaan partial cash qofkii ayaa wuxuu ka iibsaday alaabtii qiimaheeda lacagta ah ka siisay half ayuu ku siiyay amba wuxuu ku siiyay qayb kamid ah lacagtii marka lacagtaasna sida ugu jar leed inta kalena ugu lahaa leed ayaanu soo baranay cashirka maanta waxaan ku baranaynaa qof ayaa maalin alaab ka qaatay deema ku lahayd deyntii ku keenay maalmo kadib isbuuci kadib bil kadib hadba waqtiga qaadataba marka qofkii lacagta ku lahayd markuu lacagtaas ku keenay sida loo diiwaan geliyo oo asigana lacagtaas looga jaro akoonkaadana loogu shubo lacagtaas oo maadaama akoonkaada qasnadaada ay soo galayso lacagtaas asigana wax deyn inaa ku lahayn aad u muujin lahayd haddii aan soo eegno horta dadka adeemaha ku leeyahay marka hore waxa tagaysaa report-ka kadibna waxa tagaysaa customer and receivable meesha ku qoran tahay kadibna customer balance summary meesha ku qoran tahay ku dhufo halkan waxa kaaga soo baxayo in aadan cali ku leedahay 220 sidoo kale cali xasan in ku leedahay $100 $100 maalmo hore ayaa sameeyay $180 aheed wuxuu dhiibay lacagtaas oo isla markii dhiibay $80 marka tusaalahan oo kale aadan caligan oo laga qaatay badeecadan 18 bishii lixaad ayaa noo keenay lacagtii oo dhameystiran 220 ayuu noo keenay marka sidaad ugu jar lahayd haddii aad soo fiiriso qaybtan ay ku company financial kadibna balance sheet ka fiiriso meelaha ay saameynay waxa weeyaan account receivable deemaha noo maqan waa 320 220 aadan cali ah iyo $100 oo cali xasan ah marka 320 kan way yaraanaysaa maadaama deema ku maqnay lagu keenay oo 220 lagu keenay sidoo kale meeshan undeposit funds kan lacagta kugu jirto oo qaanadan lacagta kugu jirtana way badan doontaa maadaama qasnadaas lacag lagu soo shubay oo qasnadaas waxa hadda ku jirto $200 sidoo kale hadii 220 lagu shubay waxay noqonaysaa 420 marka labadaas meel ayay saameynaysaa meel kale ma saameynayso lacagtaas haddii aad rabto marka inaad sameyso waxaa tagaysaa qaybtan customer ay ku qoran tahay kadibna receive payment meesha ku qoran tahay ayaa sii tagaysaa marka qaradan ku soo baxdo waxaa sameynaysaa meeshan ay ku qoran tahay receive payment receive from lacagtan ayaa laga helay boonada waxa lagu qoraa ay ku qoran tahay receive payment marka lacagtan qofka laga qabtay magaceeda ayaa lagu qoraa marka magaca qofka ayaa halkan gelinaysaa aadan ayaan ka rabnay inaan gelino aadan cali isla markii meeshan ay ku qoran tahay customer balance waxa ku soo muuqanayso $220 in ninkan lagu leeyahay 220 ay noo keenay meeshan amount ay ku qoran tahay sidoo kale meeshan hadii taariikhdu tahay maanta tii taabo reference-ga boonada lambar ay leedahay lambarkeeda halkan gali waxaan iska leenahay boonada transaction-kiisa afraad inuu yahay kadib marka halkaas sameyso enter ama save and close markii aad halkaas ka soo dhamaato waxa soo fiirinaysaa bal dadka deemaha lagu leeyahay inuu wali ka sii mid yahay aadan cali halkan waxa kaga muuqdo cali xasan kali in deemaha lagu leeyahay 220 kana ee jarmatay ninkan waxba lagu lahayn haddii aad rabto inaad sii ogaato customer tag kadibna customer center si ku dhufo meeshan waxa kaga soo muuqanayo in aadan cali wax lacag lagu lahayn balance total waa 00 waxaa kaloo soo fiirinaysaa meeshan report-ka tag kadibna company financial ku dhufo balance sheet soo fiiri halkan waxaa kaga muuqdo lacagta ku maqan inay tahay oo kaliya $100 wax ku maqan waa $100 cali xasan lagu lahaay sidoo kale undeposit meeshan ay ku qoran tahay undeposit funds kan lacagtan ayaduna way badatay waxay ahayd $200 kaliya ay ahayd waxa ku soo korortay 220 marka labadaas meel ayay saameysay lacagtaas ninkaasna lacagtaas waa ka jartay casharka xiga ayaan ku kulmeynaa iyo inaan ku barano waxyaabo kaleeto marka haddii aad rabto sidaas ayaa loo kala jaraa marka qof lacag ka qabanayso iyo horta waxaa muhiim in aad ogaato tiimaalo hore aan sameynay oo ahayd isla invoice dhexdeeda in lagu kala jaro lacagtaas waxay ugu duwan tahay midaanu qofkaas ayadoo asigoo taagan ayuu badeecada ka qaatay isla markii ayuu lacagta tuurahaaf kamida marka isla boonada dhexdeeda ayaa lagu kala jaraa meesha waxa ku qoran marka boonadaas oo kale total iyo rest iyo paid boonada waxa lagu qoraa marka totalka lacagta intay tahay iyo intuu bixiyay inta ku harsan ayaa lagu qoraa marka isla boonadaas dhexdeeda ayaa lagu kala jaraa
kana waxa weeyaan nin qofkan boonadan loo qoray alaabta dhan ayuu qaatay wax lacag ma usoo bixin maalmo ka bacdi ayuu lacagtan bixiyay receive payment ayaa looga qabtaa taasna waxa weeyaan isla markuu lacagta half bixiyay isla boonada saddexda ayaa looga kala jaraa oo beedka iyo inta ku harsanba meesha ayaa looga sameeyaa marka labadan xabo saas ay ku kala duwan yihiin yaa la isku qaldin tan iyo kulankeena dambe. Wassalaamu calaykum.